تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. زرعنا في رياض العلم أزمانا أحايينا وحان قطاف ما زرعت بذي الأيام أيدينا. ثمار الجهد وقت الجد فرح صادق فينا ملكنا متعة الدنيا فهذا اليوم يحيينا تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرامينا. تقلدنا وساما بات يرقى في معالينا سنذكر ماضي الذكرى إذا الأيام تنسينا ونذكر أننا قلب وسلوتنا تلاقينا ونذكر أننا ورد زهور في روابينا. تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا dardarankayga labaad oon rabo pointigaas inaan ka hadlo ilmaha khuruujka ee maanta umulqura ka bixayaan oo foonfoorada ah waaye ayakana messagekaas ha iga qaataano khayr badan allah siiyo. nimayahow waa laydinku soo daalay waa laydinku soo tacbay waqti badanaa laydin geliyey maanta markaad magaalada soo dhex gashaan waa inay idinka muuqataa astaantii iyo akhlaaqdii umulqura laydinku soo baray inaadan la mid noqonina ardayga bannaanka wax ku bartay inaadan la mid noqonin ardayga bannaanka taagan. waxaan idinka baryaa oo idinkula dardaarmayaa inaad akhlaaq wanaagsan ummadda ilaahayna kula dhaqantaan naftiinana aad kula dhaqantaan. ardada ka qalin jebinayso dugsiga umulqura oo runtii dadaalkooda iyo juhdigooda iyo tacabkii la soo geliyey qayb ahaana halkaa nagu soo bandhigay dabcan haddana ay ka muuqata akhlaaqiyoodkooda iyo qaab dhaqankooda oo runtii munaasabado badan waa tegay howlo badanna waan joogay. waxaa aada uga dareemaysaa oo marka ugu horeyso muujinaya akhlaaqda ardayda halkan joogta waa qaabka howlka aan ku joogno iyo sida ay xafladda ku socoto. in dhowr boqol oo caruur soomaaliyeed ama arday laysu keeno oo haddana howlku sidan u degan yahay waa mid muujinayso akhlaaqda iyo tarbiyada qaab fadhigooda. taa iyagana waan hambaliyeynayaa farxadoodii munaasabadooda waan ku hambaliyeyna maamulkii iyo macallimiintii iyo waalidiintii kusoo dhabaraadeegan iyana waa u hambaliyeyna waxaana ka rajaynayaa in dadaalkooda ay halkaa kasii wadaan. shay walba oo la qabanayo wuxuu leeyahay ujeedooyinka ugu waaweyn uguna ballaaran mu'asasada ay ka leedahay adeegyada ay qabanayso. kow in lagu barbaariyo caruurta dhaqanka wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh inay soo saarto jiil wanaagsan anfaca diinta dalka iyo dadkaba inay caawiso caruurta Soomaaliyeed kuwaas oo nasiib darrada ay ku hayso dalka dibadiisa iyo gudihiisaba. adeegyada umulqura ay qabato way fara badan yihiin waxaa ka mid ah barashada qaybta qur-aanka iskuul nidaami ah tarbiyada islaamka ardayda lagu abaabiyo guryaha ardayda ay jeeftaan inta wanaagsan bukaan socod eegta ama farmasi tababaro xirfadeed cilmiga kombiyuutarka iyo gaadiid ardayda xaafadooda u geeyo. runtii waxaa meesha laga muujiyey waxyaabo aada u qiimo badan qof kasta magaciisa iyo mansibka uu leeyahay ayuu ku maamuusan yahay kuna mahadsan yahay. waxaan warkayga ku ururinayaa ilaahay u mahadiya macallimiintii iyo waalidiintii idinku dadaashayna u mahdiya tusaale wanaagsanna noqda. raggan way ka dhan yihiin iyo dumarka meeshan maaragtay waxyaabaha kala duwan ku soo bandhigay in la dardaarmo way ka dhan yihiin laakiin waanada cid ka maaranta ma laha. nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ayaa lagu yidhi yaa ayuha nabiyu ittaqi illaaha ayagana dhiirigelinay u tahay hor u socod iyo waxay u tahay wanaagay u tahay. iskuul lagu faali karo waay aada iyo aad tacliinta taal tarbiyada taal aqoonta taal kala dambeynta taal waxaa iiga markhaati wiilkayga maxamed amiin
ومالنتان جينا مركان كسو بحي هذا المنفور كي تخرجي يعني لبا شغلي وكلا لها مركا وكدر دارنيه برنامجي وزارة waxbarashada iyo barbaarinta la oran jiray barbaarintii waxa hay dugsiga min quraaba hay barbaarintii